mudane madaxweyne arrimaha dastuurka sida aan horeba u soo sheegnay guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka wuxuu soo diyaariyey 10 cutub oo ka mid ah 15 cutub ee dastuurka ku-meel gaarka ah kaasoo lagu sameeyey dib u eegis ballaaran diyaarna u ah in lagala soo tashado xukuumadaha golayaasha xeer dejinta iyo shacabka degan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya si dastuurka uu u noqdo mid ay shacabka Soomaaliyeed ka talo dhiibtaan loona soo gudbin doono baarlamaanka si uu uga doodo una ansixiyo hasi ahaatee waxaa weli xukuumadda federaalka laga sugayaa in la soo dhammaystiro qodobo gaar oo u baahan wadatashi siyaasadeed sida qodobka 54 ee awood qaybsiga haddaba waxaan xukuumadda ku boorinaynaa inay xukuumadda iska xil saarto ka wada xaajoodka qodobada dastuurka faraya in si wada xaajooda go'aan looga gaaro